lagu soo dhaweynaya waad arkaysaa waa daacigii weynaa xafidahullah xasan toob ayaa salaamaya waad arkaysaan culimmadii waaweyneed ayaa salaamaysa sheekh xasan alwaajidi waa kan culimmadii iyo dhalinyaradii ayaa salaan ka qaadanaya waa sheekha kaliya ee maanta lagu soo dhaweynaya halkan waa Jomo Kenyatta sheekhan oo dad badan ugu faa'iideeya diinta islaamka ayaa maanta lagu soo dhaweynaya Nairobi waad arkaysaa innaba caadi maahan sheekh xasan alwaajidi sheekhii ayaa markaan culimmadii sii salaamaya sheekhan oo taariikh dheer ku leh dadka Soomaaliyeed oo aan la iloobi doonin oo aan la iloobi karin ayaa maanta halkan lagu soo dhaweynaya salaantii ayuu ka qaadanayaa shacabkii sidoo kale culimmadii halkan ku sugneen waad arkaysaan haye waa kan sheekhii wuu soconayaa sheekh xasan alwaajidi haye wuu socdaa sheekha salaantii ayuu qaadanayaa caadi maahan like sar muuqaalka sii sheergaray si saaxiibo badan uu u gaaro sheekhan maanta waxaa lagu soo dhaweeyay Jomo Kenyatta waad arkaysaan sheekh xasan alwaajidi haye sheekhay waa kan salaantii ayuu wadayaa waa kan meeshaan maanta lama kala maqna qofna kama maqna waa ka sheekhay waa la soo dhaweeyo waxaan idin leeyahay sheekh xasan alwaajidi welcome to Nairobi bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum waxaan ku suganahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa halkan ku soo dhaweynaynaa alqaari sheekh xasan alwaajidi سأوجدين بوابرشيد الصومالية يكونوا مجال نيروبي ذلك كينيا ما دام وشيخ وسفر كلدون وسوس سمية أي وح سودوين تاسي معموس كله وسمية مسؤولين مدحضة أنتي أي علم ودين كصوماليات ذلكن وقرن وحن ودي بيا سو شيخ يو علماء كلام يسودوين وحنا الجو حلوان إسماعيل علمدي gudoomiyaha jaaliyada ayaan markaa ku wareejinaya bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah maanta waxaa farxaynoo ah inaan magaaladii caasimadii Nairobi aan ku soo dhaweyno imaamka sheekh xasan alwaajidi alqaari maanta ahadda aan mees ku soo dhaweyno eedan uu faraxsana jaaliyada dhan aniga aan ka ahay jeemankeedii iyo ma aragtay naa'ibka oo jeemanka sheekh shariif iyo asxaabta kale dhalinyaradii iyo ma aragtay dhalinyaradii gudoomiyaheedii hildhibaanka Ismaaciil iyo dhalinyarada kale meeshan sheekhan ku soo dhaweynay run ahaantii eedan uu faraxsanahay waqti dheer ay maan sugaynay alxamdulillaah ilaahay nabad waa soo bixiyay haddana waxaan rajaynaynaa insha Allah taala inaan aan geyno meeshii ma loogu talagalay marka insha Allah taala ilaahay subhanahu wa taala ha ka dhigo kulankan kulan khayr badan sallallahu alayhi wa sallam Muhammad alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd runtii waxaan u soo baxnay inaan soo dhaweyno imaamka guud sheekheena sheekh xasan alwaajidi ahlul quraan ahlullahi wa khaasatu ahlul quraanka in la soo dhaweeyo saf loo galo runtii waa waxa lagu sharafoobo lagu karaamoobo annagoo dhan waxaan maanta safkaas ugu jirnaa inaan sheekha soo dhaweyno dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi hadee waxa la yiraahdaa nin gurigiisa kugu marti sooray nin guri dadow ka soorayna nin dhaafay Soomaali bay ahayd annagu inaan ku soo dhaweyno xilbaanada hadaan nahay laakiin marka dal aan dalkeeni ahayn aan ku sii dhaweynana waa ninnimo kala weey aad baan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyno sheekh waxaan leenahay soo dhawow hadee dadkaagi iyo dalkaagi labaad baad u timaaday ku soo dhawow Nairobi maadan la soo koobi karin بعد الحمد لله تبارك وتعالى waxaan leeyahay jamiican idinkana ma santihiin waan dhawahay oo noogu yahay gudoomiyaha jaaliyada haddana noogu yahay aydan xildhibaan Ismaaciil oo runtii dawladda Soomaaliya noo matala Allah barakeeye aad baan u faraxsanahay dhalinyarada jamiican iyo gudoomiyaha dhalinyarada kulligiina jamiican intaan kala bixin magacyada waxaan si khaas kale ugu mahadcelinahay xasan toob oo runtii khayraalaas asana wadanka marti ku ah oo haddana soo dhaweynta qayb ka ah jazaahullahu khayran markii sanoo mahadsantiin eedan ka faraxsana
soo dhaweynta Nairobi marbadanka kooyo jiray laakiin tookadan kooyo rasmi ah iyo deegaan rasmi ah insha Allah taala iyo shaqo wacan iyo insha Allah taala intiina nagana dadka iska kaalmay sida khayrka oo taawanu على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان marka digitaan imaasho rasmi ah hadda bay maanta ay bilaabanaysaa insha Allah taala asaasan ku bishaarayna inta kale indhen iyo fiirin iyo jadwalkeena inaan ogaado wadankan bay ahayd laakiin hadda insha Allah taala wixii laga filayay oo runtii dadka maskaxda maanka ay ku hayeen inaan hawshii dhaxda ka galno aan bilowno dhawaana insha Allah taala la socon doontiin wajazaakumullahu khayran wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh dhammaan macaamiishii Dr. Amiin Samakaal daktarka carruurta waxa ku wargelinaya inuu ka bilaabay shaqo xaruntiisa cusub oo lagu magacaabo Samakaal Hospital oo ku taala dalcadda Taleex ka soo horjeedka idaacadda Danan xarunta Beeko wixii faahfaahin kala xiriir telefoonka ah eber 69 fiiro gaara qoysaskii haystay kaararka caymiska caafimaadka carruurta waa uu shaqaynayaa weli daktarka